Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel Osman Pancher for studying the English language. I'm ready here to teach you the English language. I'm Osman Abdulgadir Pancher. My channel is Osman Pancher. Okay. Intaas kadib maanta waa cashirkeeni 11. Maanta waxaan noo soo gabagaboobi doona erayadii aan ka soo qaadanaynay xarfaha. Okay. maanta erayadaasaan soo gabagabeynayna insha Allah. eraygeeni ugu horeeyo xarafka aan maanta qaadanayna waa W. erayga xarafka noogu dambeeyo waxa V. Okay, W waxaan ka qaadanaynaa erayga ugu horeeyo oo ah okay, wall waa derbi. Okay, waa W A L L wall waa derbi. Okay, waa W A L L wall waa derbi. waxaan qaadanaynaa eraygeena ku xiga oo ah whistle waa frimbi. Frimbiga ama siiri sida dadka kale Soomaalida ee qaar kamid ah u yaqaanaan. Whistle waa frimbi. marka W H ayaa meeshan taalo I S T L E whistle waa frimbi. marka whistle H ta W H ayaa ku xigta laguma dhawaaqayo, way aamusan tahay. laba eray oo aamusana meeshan macnaha ku qoran waa T da oo S ta ku xigta iyo W H ta oo W da ku xigta. marka labadoodaba laguma dhawaaqayo. waxaa leeyahay whistle waa W H I S T L E whistle. da xataa way aamusan tahay laakiin waa lagu kor deganaa. whistle no, don't say please. whistle waa frimbiga. waa isla fahmna umaleynaa intaas. Okay, W da waxaan kasoo qaadanay wall oo derbi ah iyo whistle oo ah frimbi. erayga saddexaad aan ka qaadanayna waa window waa daaqad. Windowska oo computerada lagu shubano waa lahaa. marka window waa daaqad. waa W I N D O W window adkay dhacda. diida adkay xogaa. diida adkay ahaan camal u dhaweey. window waa daaqad. waa W I N D O W window waa daaqad. marka eraygeeni W waxaan ka baran 3 xaraf oo ah wall, window iyo whistle. Okay, wall derbi, window wall derbi, whistle frimbi ama siiri, window oo ah marka daaqad. haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo. haddii aad horey aga mid aheedna iyo inta cusub ah like ta saara, commentigana nagu dhiirigeliya. waa mahadsantiin. Okay, whistle waa frimbiga iyo window oo daaqad ah. waxaan qaadanaynaa eraygeena ku xiga, xarafkeena ku xiga oo ah W X ayaa ku xiga. marka X maxaan ka baranaynaa? waxaan ka baranaynaa 3. Okay, 3 waxaan ka baranaynaa eray oo kala ah. erayga ugu horeeya waa eray caan ah oo ah X-ray. waa raajada qofka feeraha laga saaro markii uu TB qabo kale ama feer inay ka jabtay loo maleeyo kale, si lagu ogaado qofkan waxa gudaha aga dhacay. marka X-ray waa raajada. X-ray waa raajo. waa X-R-A-Y. X-ray waa raajo. calaamad yaraa ku jirta oo riigan ah dash ala dash. X-R-A-Y. X-ray waa raajo. waa isla fahmay. X ayaan weli ku guda jirnaa. waxaan kasoo qaadanaynaa siiga.
Siga muxuu yahay marka waa qaro. Qaro erey kale oo la yiraahdo jiro oo ah watermelon. Watermelon waa qaraha. Water ama water marka biyo waaye. Melon waa batiiq la dhahaa marka la kala qaado waaye. Watermelon wuxuu isku yihiin waa qare ama xabxab. Okay, laakiin melon kaligeed markay tahay waxa weeyaan waa batiiq. Okay, water waa biyo. Watermelon qaro. Siga qaro. Okay, aan marka isbeelino. Siga waa XIGUA. Siga yuda ma lagu dhawaaqayo. Siga x tana ahaana lagu dhawaaqa. Siga waa qaraha. waxaan u maleynaa ereygan inaan isla fahmnay. Siga watermelon inaan isla fahmnaa asagana. ereygeeni saddexaad ee x waxaan ka soo qaadanaynaa Cephia. x markana waxaan ugu dhawaaqaynaa sa ahaan. Okay, Cephia haddaan ku haddaan isbeelin waxa weeyaan waa XIPHIA. Cephia waa mid ka mid a kalluunka oo ku nool badda. Kalluunkaas sawirkiisa aad u jeedaan ayaa waxaa la yiraahdaa Cephia. Marka x-teen waxaan ka qaadana waa X-ray oo ah raajo, siga oo ah xabxab ama qaro, iyo Cephia oo ah kalluun kamid ah kalluumaha kalluun kamid ah kalluunka ku nool badda. Okay, x waan aragnay. waxaan qaadanaynaa ama aan aadaynaa erey dheeraad oo x hadaa haysid commentiga noogu qor. waxaan qaadanaynaa ama aan aadaynaa xarafkeeni y-da. ereygeeni y-da ayaan qaadanaynaa. waxaan kasoo qaadanaynaa xarafka ugu horeeya oo ah yam. waa bataati macaan. I miss the yam. Yam marka waa bataati macaan waa yam waa bataatiga gaduudan ama bataati dhuleed dadku ay dhahaan, oo markaa maxaa la yiraahdaa basbaaska lagu cuno. in la karkariyo, biyo lagu karkariyo, kadibna markii biyaha dabka oo si fiican oo u jilco, qobka in laga fiiqo, basbaaska lagu dhex rito, kadibna la isku cuno. Okay, marka yam waa bataati macaankaas ama bataati dhuleedkaas waa yam waa yam bataati macaan ama bataati dhuleed. Okay, y-da waxaan kasoo qaadanaynaa xarafka xiga oo ah youth waa dhalinyaro. Okay, youth dhalinyaro waa YOUTH. waa markii labaad aan ku arkoona tha iyadoo loogu dhawaaqayo. hadda youth ma dhees youth tha xarafkaas thada ma laha anaga luqadeena af Soomaaliga, laakiin tha waxaan kusoo baranay luqadda carabiga oo markaan soo baranayn alif ba ta tha. Okay, youth waa dhalinyaro. Okay, SYL oo kale y-daasa waxaa laga keenay youth oo ah dhalinyarada. Okay, waa YOUTH. youth waa dhalinyaro. Okay, youth waa dhalinyaro. markuu qof dhalinyar oo yahana young allah. young jamac markii laga dhiga ama wadara waxaa la yiraahdaa youth oo ah dhalinyar. young waa YOUNG, laakiin dhalinyar waa I'm young, ani waa yara. We are youth, anaga waxaan nahay dhalinyaro. Youth marka waa dhalinyaradaas waa YOUTH. youth waa dhalinyaro. marka yam iyo youth aan ka qaadano y-da. ereygeena saddexaad hadda qaadanayna oo ah yawn waa YAWN. Britishka wuxuu ugu dhawaaqaa yawn oo ahaan camulo ka dhiga yawn ayuu ka dhigaa, halka Americanka oo dhaho yarn. Okay, yarn w-da dhan oo Mareykanka marka qaryaabo oo ku dhawaaqin. yarn waa hamaansashada. Okay, hamaansiga waxaa la yiraahdaa yawn
ama yarn. Okay, waa Y-A-W-N. Yarn ama yawn ama yarn. waa isla fahamna umaleynaa. waa yam, youth, yarn. saddexdaas eray ama yawn ay waxaan leenahay waa saddexdaas eray. yam bataati macaan, youth dhalinyaro, yarn hamaansasho ama yawn hamaansasho. Okay, waxaan qaadanaynaa marka z-ka erayga aan qaadanayno waxaan ka qaadanaynaa saddex eray oo kala ah zebra, dameer farow, dameer dibadeed. soomaalida qaar waxay dhahaan dameer dibadeed, qaar kale intana waxay dhihi karaan dameer farow. Okay, dameer dibadeedka ama dameer farowga ayaa waxaa la yidhaahdaa zebra waa Z-E-B-R-A. laakiin americanka wuxuu ugu dhawaaqaa dameer dibadeedka ama dameer farowga zebra ahaanoo ka dhiga meesha oo britishka dhahay zebra ama zebra, labadaba saa jecesha ugu dhawaaq. laakiin anaga britishka dhawaaqeena u badan yahay zebra aan qaadanayna. zebra marka waa Z-E-B-R-A, zebra. waa isla fahamna umaleynaa, dameer dibadeed ama dameer farow. waxaan qaadanaynaa eraygeeni kale labaad oo ah isla xarafka z-ka oo ah zib. waxaa la dhahaa shinyeer, zip waxaa waaye waa shinyeer, waa Z-I-P, zip waa shinyeerka. eraygeeni xarafkeeni z-ka ayaan weli kuguda jirnaa. waxaan ka qaadanaynaa erayga ugu dambeeya oo ah zoo waa carwada xayawaanaadka, meelaha loo daawashada tago xayawaanaadka si loo soo arkayo waxaa la yidhaahdaa zoo. waa Z-O-O, zoo waa carwada xayawaanaadka ama beerta xayawaanaadka ayaa waxaa la yidhahdaa zoo. waa isla fahamna umaleynaa. zoo waa Z-O-O, zoo waa carwada xayawaanaadka. Okay, z-ka waxaan kasoo qaadanay saddex eray oo ah zebra ama zebra oo dameer farowga ama dameer dibadeedka ah. Okay, zip oo ah shinyeerka, iyo waxaan kaleenta maxaa la yidhaahdaa zoo oo ah beerta xayawaanaadka ama carwada xayawaanaadka. Okay, waxaan u maleynayaa marka inaan fahmnay casharkeeni 11. waxaan noo dhammaaday dhammaan xarfihii aan soo baran jirnay oo aan kasoo qaadan jirnay min 3 eray. marka waxaan leeyahay janaalka ku xirnaada, subscribe, like iyo commenting. anigana waxaan diyaar u ah inaan idin faa'iideeyo. wixii dhiirigelin ahna waa xaggiina. dhinaca positive-ka wax walba aan ka fiirina insha Allah. Englishka waa sii socon doonaa. wax waliba oo dunida yaal waxay leeyihiin bilaaw ilaa iyo dhammaad. marka waxaan qaadan doonaa anaga ilaa bilaaw ilaa iyo dhammaad ayaan sii socon doonaa insha Allah. waxaan idin leeyahay aniga oo ah teacher Osman Abdulqadir Pancher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.